السلام عليكم dhalinyarta ku xidhan channelkeena Kitag Soomaali sideen hore ugu soo xusnay muuqaalkeenu dambeeyay waxaynu bilaabmayaa course aad muhiim u ah kaasoo lagu magacaabo software architecture aynu ku baran doono qaab dhismeedka ama architecture-ka software-ska muuqaalkeena maantana waxaan ku soo qaadanaynaa cashirkeeni koowaad ee ku saabsan hordhaca course-keenan software architecture soo dhawaad dhalinyaro ugu horeyn shay kasta oo caalamka yaala waxa uu leeyahay structure ama qaab dhismeed markasta oo aynu waqti iyo dadaal gelino shaygaasina waxa adkaanaysa inaynu bedelno qaab dhismeedkaasi haddaba maxaynu ugu baahannahay in ashyaada kala duwan ee aynu adeegsanay ay yeeshaan qaab dhismeed waxa ugu muhiimsan laba qodob ulajeedka shaygaasi iyo tayadiisa halkaani markaynu leenahay shay waxaynu la jeednaa product oo kale يعني wax kasto in adeegsano waxa uu leeyahay qaab dhismeed hayso eray kale oo ka fiican fadlan nagula wada qaybta commentiga okay waxaanu nidhi qaab dhismeedku waxa uu muhiim u yahay ulajeedka shaygaasi tusaale ahaan halkaani waa masrax waxaanu arki karnaa inay tahay meel lagu talagalay in lagu qabto noocyada kala duwan ee bandhigyada ka waran haddii aanu dhahno iyadoo qaab dhismeedkan leh hal la dego oo guriyahan hal loo adeegsado ama xafiisyo laga dhigo dabcan taasi waxay noqonaysaa mid badan oo comfortable ahayn sidaas oo kale haddii aynu gurigan dhahno ha lagu qabto bandhig waxaad yana dareemaysaa inaysan ahayn mid ku habboon qaab dhismeedku waxa mar kasta inoo sheegayaa ujeedka shaygaasi sidoo kale quality-ga aynu isnooga baahannahay oo qaab dhismeedka ama structure-ku waxa uu go'aamin karaa heerka quality-ga aynu ka rabno structure-kaasi tusaale ahaan masraxan iyo gurigaani isku quality ma ahan okay haddaba markaynu joogno coding-ka xad ma leh inta qaab aynu dhisi karno software-ska aynu koodhka u habayn karno organizations kala duwan iyo hadafyada aanu software-kaasi ka leenahayna waxay naga dhigayaan inaan raacno shuruuco khaas ah architecture-ku ama qaab dhismeedka software-ku waxa uu saameyn ku leeyahay performance-ga iyo scale-ka software-kaasi ku darista features cusub iyo amniga software-kaasi qodobadan waxaa saameyn weyn oo toos ah ku leh qaab dhismeedka software-ka inaynu dib u dhisno architecture-ka software-ku waa mid naga qaadan doonta waqti iyo lacag badan marka waa inaynu faham fiican ka haysanaa qaabka aynu dhisno software-ka intayna shaqo kalaba qaban siinoo go'aaminaa ulajeedka iyo quality-ga uu yeelan doono software-keenaasi haddaynu nimaadno qeexitaanka software architecture waxaynu odhan karnaa waa qaab dhismeedka software-ka qaybihiisa kala duwan iyo sida wada shaqaynayaan kaasoo loo qaabeeyey ama aynu qaabeynayno shuruuco aynu dejinno markaynu software architecture ka hadlaynana waxaynu qarinaynaa amaba kama hadli doono implementationka ama teknolojiyadaha aynu adeegsan doono markaynu software-ka dhisayno sidoo kale qeexitaankan waxaynu ku sheegnay in architecture-ku uu ka hadlo sida ay wada xiriirayaan qaybahaasi kala duwan halkaani waxaa tusaalaha inoo soo hosgeli kara APIs-ka waxaynu sidoo kale soo tilmaamnay inay raacayno shuruuco ama requirements inoo dejisan oo cayiman dhammaanba qaybahaasi kala duwan ee aynu software-ka dhisayno waxay isugu imaanayaan inay qabtaan shaqada aynu rabno in software-keenaasi qabto taasina waa qodobka ugu horeeya ee requirement-geeno ah sidoo kale waxyaabaha ay requirement ugu baahannahay waxaa ka mid ah in software-ku uusan qaban shaqooyinka aynu rabno inuusan qaban taasi si aynu gaaminana waxaynu cayimaynaa sida software-ku uusan u qabanayn shaqada aynu rabno inuusan qaban tusaale ahaan duplication-ka oo kale si uu software-ku uga hortegayo inuu duplication dhaco oo xogta 2 jeer iyo wax ka badan ay soo noqoto kuwaasina waxaa lagu magacaabaa constraints waana mid ka mid ah waxyaabaha ay muhiimka tahay inaynu ku qorsheyno architecture-ka software-kaasi intaynaan bilaabin implementationka inaynu samayno oo dhisno code-iska uu ka samaysan yahay software-kaasi hagaag aynu haddaba isweydiino su-aal muhiim ah taasi oo ah software architecture-ku muxuu muhiimad inoo leeyahay aynu ka faa'iideyna inaynu baranno oo hirgelino ugu horeyn haddii aynu samayno architecture fiican applications-ka dhisi doonaa waxay noqon doonaan kuwa aynu si fudud uga qaadi karno startup ama application bilow ah una gaarsiin karno mid millions oo dad ay isticmaalaan taasi halkaynu ka bilaabi karno higsigeeda waa inaynu haysanno architecture aanay naga dumayn markaynu dhowr boqol ama dhowr kun oo user oo isticmaalaha gaarno sin hore usoo sheegnay haddii aynan haysan architecture fiicanna waa mid naga qaadan kartaa waqti iyo lacagba si aynu dib ugu dhisno ta kale ee architecture-ku uu naga caawinayo waa inaynu systemka aynu dhisayno ay noqdaan kuwo la isku halleyn karo shaqo ahaan oo shaqooyinka ay u qabtaan sida saxda ee laga rabay amni ahaan iyo helitaan ahaan oo markasta loo baahdo la heli karo taasina waxay kor u qaadaysaa sumcaddeena oo software-keenu waxa uu noqonayaa mid lagu soo talagalo shaqooyinka uu qabto sidoo kale waxyaabaha uu software architecture-ku inaga caawinaya waxaa ka mid ah in systemska ama software-ska aynu dhisayno aysan noqon kuwo haddii cilada ku yimaadaan gebi ahaanba shaqada joojiya balse ay yeeshaan graceful degradation oo iyadoo ay jiraan cilado haddana aynu si isticmaali karno qaybo ka mid ah software-kaasi
waxaa sidoo kale aynu ka faa'iideynaa architecture-ka fiican in marka ay cillado yimaadaan aynu si fudud oo dhaqso badan u xallin karno. Okay, haddaba markaynu eegno software development cycle-ka, architecture-ku waxuu noqonayaa aasaaskaynu ku hagayno inaan samayno design aad u faahfaahsan oo ku saabsiisan phase kasta waxyaabaha aynu rabno inaan qabanno. Okay, cashirkeena maanta oo ahaa hordhac ku saabsan software architecture-ku intaas ayuu nagu eegyahay. waxaan rajeynayaa inaynu si fiican wada fahanay hordhacaasi ku saabsan software architecture-ka. fadlan la wadaag barnaamijkan asxaabtaada maadaama uu yahay mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee xilligan, kaasi oo dhalinyarta ka caawinaya inay noqdaan software developers dhisi kara softwares la isku halayn karo. mahadsanid.